dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa saaka xilli hore bilowday qorshe sanadeedkii dhinaca wadooyinka cusub ee sanadka 2012 waxaana saaka lagu waabariistay iyadoo qaybihii harsanaa bartamaha magaalada ay ka socoto shaqo hor leh oo laami lagu shubayo wadooyin cusub. duqa Berbera Cabdalla Maxamed Carab ayaa isna ka hadlay qaybo kamid ah qorshaha dhinaca wadooyinka cusub ee ay sanadkan wadaan. أنا وين بك أعظم برامج كذا وطنك ده الله سمعي هذا تروح كم مرقاتك على ساعة إن أنا هوش تستاجر ولا شاطر بارك السنة ساك وبلو بالسنة كان فاضل يا أول أنا ده أنا شغال في دورة تواصل معانا هو شغال اسمه تفصيل برتدي حركات أي مكان وطنك ده الله سمعي بدل كان 10 كيلومتر يمين أيام كذا كل واحد خلاص أطول 1 كيلومتر كان واحد كم يديه راعي المسارع ده راعي المدني لكن بلوغ مسارع وين هي كجرا واحد وقت كريم مسارع ولا نص علان كلهم كوينه كبده oo isaguna culays badan ugu hayay runtii kharas badan ku baxayo Deer Muuse Cali oo ah madaxa hawlwadeenka dhinaca wadooyinka dawladda hoose ayaa isna telefishinka caalamiga ah Universal ugu waramay shaqadan saaka lagu waabariistay iyadoo aan saaka aanu kala hadhin madaxda iyo shaqaalaha dawladda hoose qalabka shaqaynayna ay leedahay dhammaan dawladda hoose waa shaqooyinkii sanadka cusub bilowgiisii baan hadda hawshii bilownay wataa wadadii horreysaan shubaynaa oo sanadkii cusub baan bilownay shaqadeedna waa shaqo istaba joogo mar walba waqti kasta shaqadu way noo fududo waqti kasta waanu qabanaynaa imiga shaqadeena wado kale oo dusha ah oo weyn oo 3 kiiloomitir ayana waanu samaynaynaa dabcan dadweynaha reer Berbera oo iyagu soo buuxiyay goobtii shaqadu ay ka socotay ayaa iyaguna dareenkooda ka muujiyay أنا أدي أقول هم بلينا أقول مهل علينا ما ملك الدولة هونسة ورهانتي وحن هرولو قبل طبتي ولنا قعدت كوها يولا يسقوا أنا نقول لا هذا وح عاوما أنا نقول دي سنين إن أنا كقعد سينو لكن يسقوا قرتين إن وحكة طبتان يقارنتي أن مر لبعض مهل علينا يو وحقبت كرنتي لتابن كروب وأنا وحوضن كلية هي كان حنبلية تهنيد وقدرية سنة كعسب inoo biloobmay iyo shaqada ay dawladda hoose fulisay wadooyinka u badan iyadoo dawladda hoose Soomaaliland ugu wax qabadka badan waxaan ugu hambalyeynaa maamulkeeda dawladda hoose. Yaasiin Jaamac Ali, Hadwanaag News, magaalada Berbera.